بسم الله الرحمن الرحيم. muxuu yahay gumayska caanka ah ee dhimashadiisa aadka loo hadal hayo baraha bulshada ku xiriirta iyo bogagga internetka waxa aad looga hadal hayaa gumays caan ah oo dadku ugu daawasho tagi jireen beer ku taal bartamaha magaalada New York ee dalka Mareykanka oo jimcihii dhawaa ku dhintay shil baabuur. Mas'uuliyiinta beertaasi ayaa sheegay in gumayskaasi oo lahaa midabo badan oo ku duulayay jawi hoose si uu u waarsado wuxuu ku dhacay baabuur ka shaqeynayay gudaha beertaasi. dhimashada shimbirkaasi ayaa sababay in dad jecel haadda iyo shimbiraha ee guud ahaan caalamka oo dhan ay baraha bulshada ku xiriirto ku wadaagaan sawirada iyo waxyaabaha ay ku xasuustaan gumayskaasi caanka ah. shimbirkaasi ayaa noqday caan waxaana u soo taawasho tagi jiray dad booqanaya beertaasi gaar ahaan muddadii ay jireen xayiraadaha ka dhashay cudurka safmarka ah ee COVID-19. dadka jecel bidhaanta iyo daawashada shimbiraha ayaa mar kasta soo booqan jiray waxaana intooda badan ay isku dayi jireen inay sawirtaan. bogga Twitterka ee loo sameeyay in looga faaloodo wararka iyo macluumaadka ku saabsan shimbiraha iyo haadda kale ee beertaasi ku jira ayaa lagu sheegay in la tabi doono quruxdii gumayskaas. maamulka beertaasi ayaa sheegay in shilkaasi sababay dhimashada gumayskaasi uu dhacay jimcihii dhawaa saacadu markay ahayd 2:15 aroornimo xilliga New York. bogga Twitterka ee beertaasi ayaa lagu sheegay in dad badan oo farxad ka heli jiray haatan bidhaantiisa ay tabi doonaan. dad badan ayaa ka falceliyay geeridiisa waxaana dadka jecel daawashada shimbiraha qaarkood ee dalbanayeen in sharaxaad laga bixiyo qaabka uu dhintay. qaarkood ayaa fahmay in baabuurka dilay gumayskaasi xooli ku socday isla markaana uu jiray shimbirkaasi waxayna dalbanayeen in la caddeeyo sababta baabuurkaasi oo beerta xooli ugu dhex socday iyada oo la og yahay in beerta ay ku jiraan xayawaano badan oo habeenkii oo keliya ugaarsada. hase yeeshee maamulka beertaasi ayaa sheegay in shaqaalaha beerta ay ku guda jireen shaqo hore loo sii qorsheeyey isla markaana ay raaceen dhammaan habraacyadii loo dejiyey. wuxuuna intaas ku daray in baabuurka shilkaasi geystay uu ku socday xawaare hoose oo ah 24 km/h saacadiiba isla markaana nalalkiisu ay shidnaayeen. beertaasi ayaa sida la sheegay waxaa soo maray in ka badan 280 nuuc oo ka mid ah noocyada kala gedisan ee shimbiraha waxaana maalin kasta booqan jiray dad aad u badan.